dhalinyarada ururka danwadaag ayaa booqasho ku tagay dugsiga hoose dhexe iyo sare deegaan ee ku yaala waqooyiga degmada Wadajir. Ururka danwadaag oo ah dhalinyaro si iskood isku xilqaamay ayaa u taagan wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka waxbarashada. Ururka dhalinyarada danwadaag oo booqday iskuulka deegaan waxay iskuulkaas ku qabteen barnaamijka wacyigelinta ee ku saabsan si ay ugu hortagi lahaayeen caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada iyo dhibaatooyinka ka soo wajihi kara deegaanka ay ku nool yihiin maadaama bulshadeena iyo deegaankeena ay ku soo badanayaan waxyaabaha maanka dooriya oo dhibaatooyin weyn ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wax barta. dhanka kale ardayda wax ka barata iskuulka deegaan ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyeen dhalinyarada ururka danwadaag sida had iyo jeer ay u taagan yihiin wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله. سيدك waxaan aad ugu السلام عليكم وحي أحمد علي دكتور سكولك ديغان halkan بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعد يوسف علي محمد كم السعودة دكسي قواس السلام عليكم ديغان هاتي أد أو ما سنتهين والله لها نقررك waxaan idinka mahadcelinayaa maanta aan soo booqateen si wanaagsan oo noo soo booqateen waxaan idin leeyahay weligiina jira oo kuwii dalka ku maray diintooda anfacay Allah idinka. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee deegaan Ustaad Cali Saciid Maxamuud oo u mahadceliyay ururka danwadaag isla markaasna ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaraan dadaalkooda. Bismillahirrahmanirrahim. markooda islaamiga dhammaan wadeenada ururka danwadaag maanta lagu soo booqday iskuulka deegaan booqashadooda ay ku aadaneen waxyaabaha sida inay ka caawiyaan ardayda dhanka dugsiga sare doorashada fakartiyada markaas iyaga doonayaan iyo inay ka wacyigeliyaan waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo hadda dalka kusoo kordhay ka mid tahay maandawiyaasha ay isticmaalaan dhalinyarada soo waana arrin markaasi aad u wanaagsan oona u baahan markaasi in wacyigelin weyn laga sameeyo waana ku ammaana ururka danwadaag inay arrintaas u istaagaan oo ayna walaalahooda ka caawiyaan ama ay kaga hortagaan halista kaga soo aadan waxyaabaha maandawiyaasha isticmaalaya. xaqiiqatan waxaan aad ugu faraxnay qaabka wanaagsan ay isu soo diyaariyeen oo ay ugu talagalayeen message oo fariinta ay wadaan inay gudbiyaan waana kaga mahadcelinaynaa qolkiiba boqolka leenahay dhammaan danwadaag gudoomiyahooda iyo dhammaan inta wadeenada ka iskuulka deegaan maamulkiisa wuxuu idin dirayaa mahadcelin aad u weyn adin leenahay ku mahadsantihiin waxaan kaloo ku darsanayaa inaan idinku dhiirigeliyo inaad arrintan sii wadaan oo aad gaarsiisaan meelaha aan inta badan laga isticmaalo sida aaladaha horumarsan oo tiknolojiyada sida social media oo kale aan laga isticmaalo waxay u baahan yihiin in la gaarsiiyo fariimahan inaad socodkiina badisaan oo aad gaarsiisaan min degmo ilaa gutuuro dhammaan dalka oo idin waxaan idin leeyahay ilaahay idinla garab galo waad ku mahadsantihiin dadaal waxaan idin leeyahay insha allah. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa waxbarashada ee ururka danwadaag Haashim Cabdullaahi Xasan oo ballan qaaday in dadaalkooda ay si laba jibaari doonaan ayna gaarsiin doonaan wacyigelintooda miyi iyo magaalo. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان وحن سلامي يا مامولك دكسي ديغان أرديدا يولي بمعلمين أشرفت يا قيمة سي ديران ونقصوا بمعي دكسي غوصة دحاء سريع ديغان وكمت أمريكا دكسي دكويا لديغمدا Wadajir. waxaa farxad weyn inoo ah in aan maanta aan booqasho ku tagno xarunta dugsigaasi ee deegaan aan ka wacyigelino ardayda dugsigaas dhigto sida form 4 wacyigelin weyn aan u sameynay maanta
oo maxay ahayd isaga xitaa maxay ahayd ciwaano badan aan ugu hadalnay iyagana si diiran ay noogu dhageysteen ayna nooga faa'iideysteen sidoo kale ururka mar walba wuxuu u taagan yahay anigoo ku hadlaayo magaca madaxa waxbarashada ee ururka danwadaag wuxuu u taagan yahay mar walba dhalinyarada kuwa wax bartay kuwa aan wax soo baranba intaba in uu gacan qabto oo garaadkoodana kor u qaado min tuulo ilaa iyo markaa من مجال لا يتولى إن أقرأ سوقاده سيدو كله وعن ديار قلنا مر والبا إن إسكحرنا على يرى الصومالية إلى مر والبا وحواي دل والبا وحد لسوا دكيسا لسوا اللي بقى سحن دل يريد يسا بس أنا قلت دل يرى مركز أسكت وانا إسكولن إسكو أساسي وعن ديار قلنا إن أن حتى وحبرشة حلوك أن كسرنا دل يرى الصومالية أنا قلت مركزي إسكول بدن أو كمية مركزي جوالات أو كمية مركز جوال كشبيلة هو دقمة بلعب عن دوان عن وعي جنين سميني قبل كبنادر إسكول بدن عن كتجني هاتنا توجد الإسكول كدوسي ديجان وما تنسوا جرني وعن هتعلنينا مامور كأي معلمين في أرضي الدوسي جاسو وما تسيب وين نوصل دبي إن شاء الله وانا رجعنا إسكول بدن ومن طول إلى أي مجال إن تجنا أن وعي جنين كسمينا إن شاء الله مدالي دولنا أنت نصدر الوجود فإن أن وعي جنين أن يردنا الصوماليات وبالله التوفيق والسلام عليكم. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka afhayeenka ururka danwadaag cabdulaahi maxamuud cosoble oo mahadcelin ballaaran u jeediyey maamulka macallimiinta iyo ardayda iskuulka deegaan sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen iyo dhiirigelinta ay ku dhiirigelinayaan inay laba jibaaraan dadaalkooda. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasahbihi wasallam ajmaciin أنا أقول مجا أقول الدوالك وحنا كان نقول إن الله سبحانه وتعالى ونصر الدنيا إن ما أنت صوب وقالوا تكسير الدعوين ديجان primary secondary school مركب عن ما دعينا مامور المعلمين كمان أبدأ سكول كديجان أو سيران أو فرحة ديجان تاعي نوصل لسكول runtii maamulka iyo macallimiinta waxay aad noogu dhiirigeliyeen sidii aan ku horumarinayn ururka waxay aad noogu bogaadiyeen oo ay wax ka qabad ay ku tilmaameen ururka oo ay macnaha horumarkiisa iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iyo dhinacyo fara badan dhiirigelinta runtii waa ugu mahadcelinaynaa macallimiinta iyo maamulka dhammaan ardayda si gaar ah ayagana ugu mahadcelinaynaa qaabka wanaagsan ee noo dhegeysan oo ay noo soo dhaweeyeen waana dhalinyarada ururka danwadaag waxay had iyo jeer u taagan yihiin horumarinta dalkooda iyo dadkooda waadna ku soo biiri kartaa si aan ugu dhaweyno halgankeena dalka iyo danwadaag.